ciidanka badda Soomaaliyeed waxay horta qaybtooda Navy-ga waxay qaabilsan yihiin xuduudaha oo su'aalahaas asaga Kamboni inta u dhaxayso oo dhan oo marsooyin ah ama xeeb laga oo dalka leeyahay Navy waxaa loogu talagalay furmaha meesha xuduudda aan kala wadaagno badaha bari oo wadamada dariska ah marka inta ka soo horeyso ilaa 25 mayl ilaa 20 mayl wixii saas ah waxa ku shaqo leh ciidanka booliiska shaqo ku leh Puntland hadda waxay soo kordhisay inay qof Soomaaliya saarto oo isha qofka Soomaaliga ah wuxuu u saaran yahay maahan inuu shacabka wax ka celinayo ama ayaga wax xakameeynayo waa wax shacabka xitaa hadii la dhacayo oo qaali u yahay qoys ayaga lacag ku siinayo marka musuqmaasuqa intuu dhibkaas jirana waa mid hadda carqaladaha ugu badan oo haysta kalluumaysatada Soomaalida waa maasantahay kabtan xarajina asxaabta inay aad iyo aad u fahmayaan su-aasha saddexaad ee barnaamijkeena waxaan ku weydiinaynaa kormeerka iyo ilaalinta badda marka waxa la kormeerayo muxuu yahay iyo ilaalinta badda yaa ilaalinayo maxaase laga ilaalinayaa horta ilaalin joogtaa markii lagu leeyahay dadka deegaanka boqolkiiba boqol qaataan weliba wasaaradda kalluumaysiga waxaa la rabaa siyaasad cad inay la timaado ilaalin iyo korjoogteen hadeed ee maadana dadka deegaanka oo xeebaha degan aa la rabaa odayaasha in la isku keeno wasaaradda waxaa la rabaa commission ku bixiso oo dadkaas ilaalada markasta ayaga culeyska la saaro kormeerka waxaa la rabaa dadka deegaanka xeebaha degan in wasaaradda ay diiwaan geliso odayaasha deegaanka xeebaha degan waana waajib ayaga la rabaa inay korjoogto markasta ee ogaadaan haddii isbedelaan ii sheeg deegaanka hadduu isbedel ku yimaado haddii xeebihii dowladda shisheeye soo galaan korjoogteynta iyo ilaalintana waa inay og yihiin kalluunka dabar go-ayo iyo kalluunka deegaankaas hadda ka bacdi ama kalluunka yar aan loogu talagelin inaan la soo saarin oo wasaaraddu waxay odayaashaas ka caawinayaan dadka deegaanka ay ka caawinayaan qabka badda iyo haddii biyaha soo wasaqeeyo kale xeebta imaanaya wasaaradda wargeliyaa weliba xataa sumowga waxa hadda maraakiibta shisheeye Soomaaliya ilaa hadda waxaa arkaysaa malaay iska soo caariyey malaayo badan oo soo caariyey waxaa keenayana wax kale maahan mahadow sumowga biyaha badda lagu daadiyo ee maraakiibta daadiyaan waana carqaladda ugu weyn oo maanta haysata waa xataa kalluunkii ii sheeg Soomaaliya soo galo ilaa kalluumada way gooshaan caalamka ay kala gooshaan waa noole badda Ilaahay ku nooleeyay kalluunka laga yaabo biyaha Soomaaliya soo galo inuu ka tarmar rabo waxaa arkay carqaladda wasaqowga ama sumeyn inay adkaan ee halkaas ku baaba'aan weliba xitaa kalluunka sharci darrada waa aragtay waxaa la yidhaahdaa illegal fishing dadka deegaanka ah odayaasha ah waxay boqolkiiba boqol ka qayb qaadanayaan ii sheeg in ay kormeeraan biyada badda ka kalluumeelaan kalluumaysiga sharci darrada ah oo maraakiibta shisheeyaha iyo laaxiska shisheeyaha ay soo galayaan midda kale xitaa sharcigaas wuxuu anfacaa kormeerkaas wuxuu anfacaa dadka badda ku dabaasho dalxiisayaasha ah sidoo kale xitaa sharcigaas wuu anfacayo limit waxaa loo sameynaya ay ku dabaalan karaan because limitkaas wixii ka dambeeya waxay noqonaysa in kalluun hadhow ayagana dhib gaarsii karo inuu halkaas soo galo caalamka xataa way leeyihiin meel oo limitka waa sax loogu talagalay marka limitkaas dowladda hadda waxaa la rabaa inay keento oo hadhowda xitaa laga yaabo hadhow dadaa xataa dhalinyartan oo aragtay liida markii lagu dabaalanayo waxay kuleeyihin ilaa xeeb labaada tegeynaa xeeb labaada haddana kasii tegeynaa kuleeyihin dadweynta ay gelayaan waana halis hadhow waxaa dili karta oo dhib u keeni kara kalluunkii ama libaaxa hadhow naafee karo ama waa taqaanaa ii sheeg waxaa hadda u taqaana dambri oo taqaanaa kulley midka afka dheer leh iyo wayambuuradoo kale hadhow saameyn u keeni karta dajeerta marka dhammaantood way soo hadhow dhib ay usoo geysanayaan dadkaas dalxiisayaasha ah marka nidaamkaas oo dhan waxay soo gelay kormeerka ah baddana waa xakamaysnay maasantaa kabtan kormeerka haddii meeshaas ooga baxdo waxaa galaynaa ilaalinta badda badda badanaa ayaa ilaalinaya because ilaalo marka la dhaho badda ilaa iyo ciidamada badda saddex inay gaarayaan
marka ilaalintaas inaa asxaabta ayagoo haa ilaalinta badda haddii mar imaado kow markii laga soo tago ciidanka ilaalada xeebaha markii laga soo tago booliiska iyo ciidanka neviga Somali Army ay leedahay ilaalinta markay timaado ilaalinta waxaa horta sida sharciga ah ilaalada xeebaha booliiska oo leeb guraadka ah iyo booliiska badda iyo Navy Somali Army oo saddexdaas horta ilaaliso markii laga soo tago dadka deegaanka waa inay ka qayb qaataan ilaalinta waa inay ka qayb qaataan ilaahay kuma sii diido odayaasha deegaanka oo culays badan ayagana ay saaraan iyo qof kastoo Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ee xeeb degan waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo bey'ada badda ama deegaanka badda marka maamulkaas ama ilaalintaasna waa waxa kaliya hadda caalamka nooga oo ayaga nooga hormarsiin waa taa hadda aragtay maraakiibta waxay soo gudba xuduudoona soo galo oo xataa laisku handabaayo oo laisku xabadeynayo caalamka marka wax kastoo la xakameeyo ama la ilaaliyo bulshadu way ku kortaa dal kastana kheyraadkiisa lagu ilaaliyaa marka muhiimadda waxaan saaraynaa dowladda keliya iyo ciidanka inaan la saarin qof kastoo bey'ada ama deegaanka badda degan inay culays saaraan marka halkaas uga baxi karta aad iyo aad marka waxyaabaha ilaalinayaan hadda ayaga ilaaliya laakiin waxyaabaha ilaalinaya shaqada wada kala leeyihiin saafilaya kuwa naaviga waa kuwa ugu sareeya ugu weyn oo xitaa kuwa gujiska wata inay yihiin coastal guardkan inay yihiin ilaalada xeebaha qaybta kaleeto oo booliiska caadiga ayagana in ay ilaalinayaan wixii sharci daro ku kulmaysanayeen ilaa iyo limid waxay leeyihiin ayaga booliiska laba u kala maraa booliiska ilaalada xeebahana way noqdaan oo adee life guard korta way noqdaan oo ilaalada xeebaha midda kalena waxay noqdaan booliiska sida hadda militariga bad oo bariga oo u joogo iyo booliiska oo bariga joogo waxay leeyihiin maan action ay leeyihiin kuwa dadka oo dadka mudaharaadada kuwa ka hortago waxay leeyihiin daraawiishay leeyihiin saas la ajligeeda ayadoo saasay u leeyihiin shaqada laakiin Somali National Army ciidanka badda Soomaaliyeed waxay horta qaybtooda neefiga waxay qaabilsan yihiin xuduudaha oo su'aalahaas asaga Kamboni inta u dhaxayso dhan oo marsooyin ah ama xeeb laga oo dalka leeyahay Navy waxa loogu talagalay furmaha meesha xuduudka kala wadaaga badaha bari oo wadamada dariska ah marka inta ka soo horeyso ilaa 25 mayl ilaa 20 mayl xisaas waxa ku shaqo leh ciidanka booliiska shaqo ku leh marka kalluumaysatada waxay ka mid yihiin ilaalinta dadka deegaanka iyo degan waxay ka mid yihiin ilaalinta waxa soo galayo dhan ilaalina dal kasta waxa la rabaa dadkiisa inay ilaashadaan waana qasab marka waxaan jeclaan lahaa inaan waxa la yiri farkiligeed foolma dhaqdo dalku hadda wuxuu gaarayaa ama wuxuu soo bilaabay hadda aan caalamku waxaanay inaan la jaan qaadno waxaan rajeynayaa insha Allah inaad kaalin qof kastoo Soomaaliyeed inuu kaalin buuxda ka qaato arrinta ilaalinta aan maasanta su'aasha kale ee xigto barnaamijka ka qaybgalka bulshada wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda in ay ka qaybgalka bulshada ay sameeyaan bulshada inay waqti la qaataan mar walba oo ay xog wareystaan iyadana way jirtaa horta waxaa maanta dhan ilaalinta iyo waxa ka sheekeynayo dhan mahadow wasaaradda waxaa waajib ku ah in dowladda inta askarta loogu talagalay markii laga soo tago waxa la yiri farkiligeed foolma dhaqdo ka qaybgalka bulshada horta bulshada kalluumaysatada iyo odayaasha waa inay ka qayb qaataan iyo dadka deegaanka ah muhiimna way u tahay labada wasaaradda gaadiidka dekedda iyo tan kalluumaysatada wasaaradda kalluumaysiga labaduba waa waajib xitaa go'aanada la qaadanayo wasaaradda kalluumaysiga ee qaadanaysa wasaaradda gaadiidka waxaa qasab ka ah kalluumaysatada dalka iyo odayaasha deegaanka waa inay ayagan go'aanka lagu soo daraa ka qayb qaataan go'aanadaas marka bulshada ka qayb qaadashada bulshada waa qof kasta oo xeeb degan waa inuu la shaqeeyaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda gaadiidka dekedaha iyo ciidanka ilaalada xeebaha iyo Somali Navy marka
wasaaradana hadda waxaa moodaa odayaasha badana aysan jirin nidaamka ah inay go-aanka lagu soo daro kalluumaysatada oo la yiraahdo deegaanka adinkaa deganay maanta go-aan noocaana qaadan rabnahay adinku fikirkiina muxuu leeyahay in lala tashto lala tashto